ururka haweenka qaranka ee Norway gobolka Togdheer ayaa maanta deeq raashin oo isugu jirta sonkor iyo daqiiq oo ka kooban 400 oo kiish gaarsiiyay 400 oo qoys oo danyar oo ku dhaqan xaafadaha kala duwan ee magaalada Burco waxaana maanta deeqda dadka la gaarsiiyay ahaayeen kuwa isugu jiray haween jilicsan curyaamiin indhoolayaal agoon iyo waliba dad aad u tabar daran waxaana qaybinta deeqdan ay hor kacaysay gudoomiyaha ururka Norway gobolka Togdheer Marwadeeqa Weydaar ay ka hadashay qaybinta deeqdan iyo waliba sidii ay maanta dadkaasi u gaarsiiyeen ururka Norway gobolka Togdheer sida arkaysan halka waxaan loo dhibaa 200 kiish oo sonkor iyo 200 kiish oo daqiiqa waa aragtaan dadka lagu qaybinayna 400 ee maxay toolay kiish si cadaaladna waa lagu qaybinayna oo aad u sharaf badan waana u jeedaan haweenka jilicsan cuyaaniinta maxay toolay indhoolayaasha agoonta dadka raqda ah intaas ayaan u kala qaybinaynaa si fiican baan ugu qaybinaa 400 kiish halkan ay ku dhan yihiin oo ku wada yaalaan marka insha Allah bidmilaahi karin si cadaalad ayaan ugu qaybin geestiisana mas'uuliyiinta iyaguna halkaasi ka hadashay ee sida weyn uga qayb qaadanayay qaybinta deeqdani waxa kamid ahaa mudane Sahal Aadan waadinka arkaya 10kii haweenayba waxay qaadanayaan 10 kiish bay qaadanayaan oo kuwa halka ku rasaysanaya dabadeedna baabuurtii ay wateen bay ku qaadanayaan guryahoodii bay la tagayaan oo ay ku qaybsanayaan alxamdulillah rabbil caalamiin habsami bay u socotaa si wanaagsan bay u socotaa waana sidii la doonayay qoladii dabagalka ee hay'adiina way noo timi hadeerna kuwa kala noo imanaya geestoodana qaar ka tirsan dadka danyarta ee maanta ka faa'iideystay deeqdani oo ka timi dawladda dalka Turkiga isla markaana ugu soo deeqday Somaliland ka hadlay ayaa mahadcelin ballaaran u soo jeediyay ururka Norway iyo dawladda Turkigaba ugu dambeyntiina deeqdani maanta la gaarsiiyay qoysaskani danyarta ayaa iyadu noqonaysa mid wax weyn ka taraysa baahidii haysatay qoysaskaasi walow aanay ahayn mid ku filan oo dabooli karta baahida haysata waa Maxamed Awad Maxamed telefishinka caalamiga ee Somali Channel Burco.